maanta waxaa si toosa u hadlay oo saxaafadda la hadlay xeer ilaaliyaha degmada Hennepin oo ah degmadan ay ku taalla magaalada Minneapolis. xeer ilaaliyuhu waxa uu soo bandhigay eedeymo rasmi ah oo uu u jeediyey sarkaalka Maxamed Nuur. waxa uu ku eedeeyey laba arrimood, laba fal dambiyeed oo dil ah ayaa uu ku eedeeyey. mid loo yaqaano dilka darajada saddexaad, midna darajada labaad. labadaa eedeymood waa eedeymo aad iyo aad u culculus ay kana dhalan karto haddii lagu helo Maxamed Nuur oo lagu caddeeyo keeni karta xabsi aad iyo aad u dheer iyo ganaaxyo aad iyo aad u culus. haddii aan marka macnayno labadan dembi ee lagu soo eedeeyey, sababta ugu soo eedeeyey muxuu ku sheegay? dabcan muddo baaritaan baa socday tan iyo bishii July ee 2017 markii gabadhan la dilay ee ay ku dhimatay xabad uu riday sida la sheegay sarkaalka Maxamed Nuur. waxa baaritaankaasi uu muddoba soo jiitamayey ku soo ururay in ninkan xeer ilaaliya uu go'aan ka qaato ma hayaa caddaymo ku filan in uu soo eedayn karo sarkaalka Maxamed Nuur mise ma hayo. maanta waxa uu caddeeyey in caddaymo ku filan oo uu xeer beegti horgeyn karo, maxkamadna u soo bandhigi karo inuu isu keenay. waxa kaloo sheegay inuu ku qanacsan yahay in uu hayo caddaymahaasi uu ku sheegay inay yihiin qaar tusaya in sarkaalka Maxamed Nuur uu si ula kaca gabadha u dilay. dabcan arrintaasi waa arrin la horgeyn doono maxkamad. looyarada difaacaya Maxamed Nuur dabcan arrinta aad iyo aad bay u beeninayaan, waanay ka hor imanayaan. waxaanay ku doodi sida aan filayo ay rabaan inay ku doodaan in waxyaabahaas uu xeer ilaaliyuhu maanta goobta ka sheegay ay yihiin waxba kama jiraan. waa gartay, waxaad carab ku dhufatay isla markaasina xeer ilaaliyuhu laftiisa uu ku soo eedeeyey laba fal dembiyeed oo dil ah. haddii aad macnayso marka labadan fal dembiyeed ciqaabtoodu waxay noqonayso? labada fal dambiyeed runtii marka sideedaba sharci ahaan dilka laga hadlayo, maadharka waxa loo yaqaano qaybo ayuu kala leeyahay. waxayna ku xiran tahay mar walba hubka la adeegsaday iyo duruufta uu dilkani u dhacay. dil baa ula kac toosa noqon kara oo lasoo qorsheeyey. dil baa noqon kara mid aan lasoo qorsheyn oo cabsi kadis ah, ama qofka oo si kadisa un wixii ula kac u sameeyey noqonaysa, ama wax uu mooday wax oo uu ku qaldamay lafteeda. marka dilkan qaybta saddexaad ee lagu eedeeyey runtii macnaheedu waxa weeye qofka falkaa sameeyey waa qof maskaxdiisa ay ka maran tahay dhammaanba naxariistii loo hayay nafta bini'aadanka, oo isticmaalayna aalad ama hub khatar ah ama ficil aad iyo aad khatar u ah oo dangerous ah. taasi waa taas. haddii marka qofka dembigaa lagu helo, waxa uu mutaysan karaa sharciga Minnesota xabsi gaaraya 25 aan ka badnayn 25 sano. inta badanna waxay u badan tahay inuu ka yaraado intaas. ka labaad ee lagu soo eedeeyey waxa weeye nooca loo yaqaano second degree manslaughter, oo ah qofka oo si kala daadsanaan ah, ka fiirsasho la'aan ah, dayacaad negligency, isagoon uguba talagelin haddana in uu naf bila'aadan ku qaado ama uu ku dilo isagoon xataa ugu talagelin, laakiin ay ka timid dayacaad uu dayacay iyo isaga oo kala daadsan oo aan taxadirkii loo baahnaa aan samaynin. marka kaas ka dambe dembiga labaad second degree manslaughter-ka waxa qofka lagu xukumi karaa haddii lagu caddeeyo xarig aan ka badnayn 10 sano iyo ganaax gaaraya $20,000. marka dabcan xeer ilaaliyu wuxuu isku dayayaa in uu soo bandhigo dhammaan eedeymaha uu awoodayo oo dhan. ma aha macnaheedu inuu kuwaasi noqonayaan kuwa lagu heli doono, laakiin ilaa hadda labadaasay soo bandhigeen maanta. waxaa mudan xusid in maanta isaga la xiray oo xabsiga la dhigay. waxaa la dhigay damaanad ayaa ay dowladdu soo jeedisay ah 500,000 ama nus milyan in ay damaanadiisa ka dhigeen dowladdu. damaanadaasi waa midda dowladda weeye. garsoore ayaa dib ugu laaban doona. waxa u furan Maxamed Nuur iyo looyaradiisa inay ka doodaan damaanadaasi oo ay yiraahdaan waa qaali weeye, nus milyan. dagaalka ugu horeeya berita ka dhacaya maxkamadda xagga sharciga, dagaalka xagga sharciga ka bilaabanayay waa arrinta damaanada weeye. dabcan Maxamed asalkiisu waa Soomaali badan baa gobolkan degan. xarigiisa dadku aad bay uga falcelinayaan weli markaad fiiriso baraha bulshada. adigu ka garga yaqaan sharci yaqaan ahaan ma isleedahay Soomaalinimadiisa, madownimadiisa, muslimnimadiisu way u keenaysaa cadaalad haddii aanu intaa ahayn uu heli lahaa inuu ku waayo?
nasiib daro maraykanka qofka isirkiisa iyo midabkiisa iyo xaaladiisa dhaqaale qaybay ka tahay cadaaladda uu helayo meelo badan oo maraykanka ka mid a lama wada odhan kara maraykanka oo dhan waa arrin nasiib daraa aniga oo lawyer ah inaan sidaa iraahdana waa arrin runtii aan u arka inay dhib tahay laakiin statisticska iyo daytada ama cilmi baarista la soo ururiyey baa waxay sheegaysaa in dad badan oo xeerbeegti ihi ay runtii oo ah dadka runtii go'aamiye kaysaska ama arrimaha la horgeeyo ee qadiyadaha la horgeeyo dadkaasi inay ku saamoobaan qofka midabkiisa iyo meesha uu isir ahaan ka soo jeedo marka maxamed nuur waa qof Soomaali ah waa qof aan waddankan ku dhalanin oo soo galeyti ah oo immigrant ah waa qof muslim ah marka arrimahaas oo dhan waxaan qiyaasayaa inay noqonayaan arrimo maalmaha soo socda aad looga hadli doono lagana cabsi qabo inay saameyn ku yeeshaan nooca cadaaladda uu helayo